manta markii dhulkeena maanta lama madhin karaayo maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta waa maalin weyne maanta madaxiin asaga keliya ma uusan ahayn madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee sidoo kale waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo xilka uga daga si dimuqraadi ah. kani allaha u naxariistee waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya aadan cabdulle cusmaan aadan cadde waxa uu ku dhashay tuulada Jawiil oo ka tirsan magaalada Beledweyne sanadka markuu ahaa 1909 yaraantiisii wuxuu soo marayba sanadkii 1944 ayuu magaalada Beledweyne kaga biiray nidaamkii dhalinyarada ee SYC wuxuuna noqday lambarkii 130aad waxaana isla mar la diiwaan geliyay isaga iyo allaha u naxariistee Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ahaa lambarkii ka horeeyay madaxweynaha oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa hadee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin manta waa mahad ilaahi maanta dadkii midowye maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta hase yeeshee sanadkii 1953 ayuu u soo guuray magaalada Muqdisho sanadkii 1954na wuxuu ku xigeen ka noqday gole loo yaqaanay golaha la tashiga oo uu sameeyay Talyaaniga isla sanadkii 1959 ayaa loo doortay hogaamiyihii ama gudoomiyihii ugu horeeyay ee golihii baarlamaanka daaqiliyada iyadoo uu xilkaas hayay ilaa 1 Luulyo 1960 kolkaas uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya bishii Juun sanadkii 1967 ayaa lagaga adkaaday doorashada madaxweynenimada wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo xilka si dimuqraadiyad ah uga daga amaba looga guulaysto
sheekh mukhtaar maxamed xuseen oo soo noqday gudoomiye baarlamaan sanadkii 1966 ilaa sanadkii 1969 iyo kusime madaxweyne markii la dilay allaha u naxariistee madaxweyne cabdirashiid cali sharmaake ayaa ka sheekeeyay taariikhda madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya aadan cabdulle cusmaan aadan cadde waxa uuna yiri sida aadan cabdulle cusmaan marbuu ii sheekeeyay taariikhdiisa runtii markaasi aad baan ula yaabay kartidiisa iyo dadnimadiisa daraawiish ayaa ku soo duushay weerarna ku soo qaaday meeshii ay deganaayeen xoolahoodiina ka dhacday hooyadiisna weerarkaas ayay ku dhimatay isaga aadan iyo aabihii cabdulle ayaa ka fakaday baxsadkoodiina ilaa mustaxiil ayay ka dhaceen oo webiga ayay dhanka qorraxsin qorraxu dhaca kaga tallaabeen kuma sii hakane cawin ogaadeen ayay dhex galeen niman cawlyahan ah ayuu cabdulle cusmaan geel u raaci jiray siduu xoolihii muddo u raacayay ayuu geed si xun uga muday lugtii laga muday ayaa si weyn u ballaaratay meeshay joogaan oo ahayd meel bahgooyo ah oo aan magaalo u dhoweyn wax daawo ah ma uusan helin aadan aabbihii cabdulle sidaa ayay lugtii ugu weynaatay oo dhaawicii ayaa ku fiday muddo kadib cabdulle cusmaan oo ahaa aadan aabbihii waxa uu gabay dhammaan socodkii wuxuu noqday guri aal ama qof guriga uun jooga ee sariirta saaran meelna aanan uga bixin waxaa kale uu ii sheegay in ay meeshii ka guureen markii ay ka guureenna meel tuulo ah oo magaalada u dhow ay soo degeen